maanta waxaan tusayaa sidan u samaysto bajiyo iyo basbaas aad iyo aad u fudud. anigu bajiyaha kama samaysto digirta, waxaan jecelahay red lentils inaan ka samaysto. koob iyo bar baan ku shubay madiibada. si fiican waa inaad u meydhid, uskagaasoo dhan kasoo saartid ilaa intay biyuhu sidaa nadiif u noqonayaan. kadib daboolkan saaray 2 saacadood baan dhigay. markaa waxaan diyaarsaday alaabtii aan ku dareeyay waa 2 xabadood basala, 2 xabadood basbaasa, kamsar caleen iyo toon. 2 saacadood ka bacdi biyihii baan ka miiray, waxaan ku riday food processor, alaabtii baan ku daray, waxaan u raaciyay cumin, filfil iyo milix. kadib waan isku ridqay ilaa intay noqonaysay paste. then waxaan ku riday plate, waxaan ku daray 2 malqacdood oo daqiiqa way yara jilicsanayd. waxaad doonaysaa inaanay aadna u jilicsanaanin aadna u adkayn. marka daqiiqda si fiican ugu walaaqdid, saliidaad kululeynaysaa, kabacdi waad shiilaysaa. anigu malqacad baan isticmaalay, gacantaad waad isticmaali kartaa haddaad rabtid. dabka dhexdhexaad baad ka dhigaysaa. haddaad high heat ka dhigtid uu gubanaya isagoon si fiican dhexda uga bislaanay. ambajihii saasoo ku bislaaday. markaad saliidda ka saaraysid waxaad isticmaalaysaa malqacada shaandhada ah ee saliidda oo dhan ka reebaysaa. hadda waxaan sameynaynaa basbaaskii lagu cuneeyay bajiyaha. waxaan ku riday mashiinka, waxaa lagu ridqo basbaas, basal, tamaandho, timir, xamar iyo in yaro milixa iyo in yaro biyo ah. waan isku ridqay si fiican. kadib madiibad baan ku shubay, liinlanaan baan dusha kaga tuujiyey. liinlanaanta haddaad ku ridqdid yaro qaraar buu noqonayaa. waxa fiican dusha inaad kaga tuujisid. and that is it. Enjoy.